xeerkan wuxuu xusuusiyey xeerkii qoyska ee maxamed siyaad bare soo saaray ee 10 wadaad lagu digay ayuu xusuusiyey wuu ka xun yahay waa uu ka qurbu yahay xeerkii qoyska ee 10 wadaad lagu digay 1974 aad iyo aad buu uga xun yahay waayo kaasi wuxuu lahaa oo keliya rad halka ilanka iyo ilanta isku in baa la siinaya intaasoo keliya ayaa kaa ku qorayd oo shuuciyadii iyo hantiwadaagii iyo sistamkii waddanka ku socday berigaa uu qabay kani dhaqankii reer qoomuluud buu fasaxayaa waxaan iminka gaaladu baarlamaanada ay ka ansixiyeen ee qoyska nin qaba naag qabta siladii buu fasaxayaa aayadii qur-aanka kitaabka ilaahay ku qoraabuu ka hor imanaya marka ay noqoto aayadaha qur-aanka ah iyo kitaabka ilaahay markay noqotona ninkii taa taageeraa isagay u taala laba malag baa garbaa ka saaran inkastoo mas-uula inkastoo madaxa oo ka qoraya oo alla inoogu sheegay kitaabkiisa oo maalinta qiyaamaha odhanaya hoogayga wax yarba may dhaafin wixii aan sameeyey maalinta qiyaamaha kitaabkaa laynoo horkeenaya berii baanu ka nahay nagu berii baanu ka nahay xeel dhaqankii islaamka iyo diintii islaamkaba ka hor imanaya ayaan daro waxaa ku qoran halka bishii 9 Sebtembar oo bishan ku jiro kowdeedii baa la faafiyey talo maxaa helay dawladayadii talo maxaa madaxweynahayagii helay talo maxaa sharciyadaanadayadii helay waa diinteeni meeday islaamnimadeeni meeday war wadaadadii maye marka la baaran confessional ay imanaya masaajidada ka qudbaday jiray war maye oora jiray wariba waxa wadiintii oo dhan laga baxay maye maxay uga hadli waayeen maxaa musiyay kuwii baaran ka qaylin jiray masaajidada oo dhan jumca ka hadli jiray maye maxay uga hadli waayeen xeerkan nin kasta oo ku dhaqma nin kastoo cid ku dhaqa waa gaal ummad yahay laydu kuma dhaqi karo waa gaalnimo ninka gaalnimo soo waaridaana isagay u taala isaga ilaahay baanu isu daynayna waxaan xusuusnahay maalintii 10 wadaad la dilay ayuu maxamed siyaad bare oo xooga oo dawlad xoog weynaa ayaa magaalada xamar baa ruxantay xamar baa joogaano magaalada baa ruxantay laba miig 21 oo miig diyaarado cusub oo guux weyn oo markaa loo soo dhaweeyo magaalada salad dul mariyo heestaa ku dul maraysa aad beerka dhigayso ayuu soo kiciyey si dadka uu khalkhal geliyo oo loo wada gabado laba jeer markay sidaa noo dhaafeen ayaa balu xisu keenay aduu garo xawal xaafadii ugu population-ka badnayd ay labadii miig afka istare xaafadii bay baabiyeen xaybaan hawaan usoo taagno xabsad ruuxiisii awoodii masayo axyara muuji wariga mashaariicda gaaladu wadamiinaan iska eegi karayn maxaa caqligii inaga qaaday in yaroo lacagaynu siisanaa diinteenni iyo iimaankeenni warkhasada ilaahay baa ka waaweyn hay-adahan dawladda ee waxaan soo malmaluuqaya xaaraanta ana war ilaahay ka baqaan ilaahay ka baqa madaxweynaha waxaa leeyahay hoos u eegday hoostaadii waxaa ka socdaan